Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka kuwa ugu doorka roorna waxaa qayb ka noqonaya dagaal u dhexeeya ciidanka Somaliland iyo koox jabhad ah oo huweysan oo markaani ka dhacay gobolka Awdal. Waxaan kula wadaagi doonaa khasaaraha iyo sidoo kale markaasi xogta rasmiga ee dagaalkaasi ku saabsan oo ka dhacay gobolka Awdal. Qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya ciidanka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa danab oo markaani dib u qabsaday deegaanka Kudha oo markaasi 24 saac la soo dhaafay ay ka riminayeen kooxda Al-Shabaab iyo markaani ciidanka oo markaani soo bandhigay maxaabiis nolosha ku qabteen iyo sidoo kale meydada Tirabella oo markaasi ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanka Kudha ayaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal. dhinaca kalena qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamulka iskiisa madax banaanida isugu dhawaaqay ee Somaliland Cabdiraxmaan Cirro oo markaani la kulmay madaxweynaha Israa'iil iyo sidoo kale wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump. Haddaba kulankaasi maxaa diiradda lagu saaray maxaana xilligan ku soo aadiyay in Cabdiraxmaan Cirro uu la kulmo madaxweynaha Israa'iil ayaan kula wadaagi doonaa daawadayaal. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya markaasi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar degdeg ah ku tagayo dalka Itoobiya. Haddaba muxuu diiradda saaran yahay safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaad ku daawan doontaa qodobkani. balse qodobadaas oo dhameystiran kula wadaagin haddii ay tahay markuu ugu horeysan soo boqoto fadlan YouTube-kana subscribe saar gambalka furo muuqaalkan like saar wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faalada noogu reeb waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena mahadsanid daawade ayna ku bilowno dagaal aad u culus oo na dhaxeeya ciidanka Somaliland iyo jabhad huweysan oo markaani ka dhacay gobolka Awdal. faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helaya dagaal ka dhacay deegaanka Indho-Birale oo hoos yimaada degmada Saylac ee gobolka Awdal. dagaalkan ayaa dhexmaray ciidanka militariga Somaliland iyo sidoo kale jabhad huweysan oo ku sugan markaasi deegaankaasi kuwaasi oo sheegay inay ka soo horjeedaan beesha Ciise. dagaalkan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray labada dhinac waxaana dagaalkan maanta ka dhacay halkaasi uu salka ku haya xiisad dhawaan ka dhalatay joojigitaankii soo bandhigii buugga Xeer Ciise. ciidanka markaasi militariga Somaliland oo markaasi qoraal soo saaray ayaa sheegay in ay howlgalkani ka fuliyeen deegaanka Indho-Birale laguna qabtay hub sharci darro ah oo markaasi isugu jira qoryaha nooca dirandooriga u dhacayo sidoo kale qoryaha loo yaqaano AK47. ciidamadu waxay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa mid qorsheysan laguna xaqiijinayay sugidda amniga iyo xasiloonida shacabka. markaasi ay sheegeen in ciidanka militariga Somaliland howlgalkaasi ayuu taliska ciidanku ku sheegay in lagu baadigoobayay koox dishay 2 qof oo rayd ah kaasi oo keentay dhimashada 2 ka mid ah xubnaha kooxda iyo sidoo kale dhaawac 4 kale sida lagu sheegay markaasi bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka militariga Soomaaliya. sidoo kale talisku waxay sheegeen in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid ah xubnaha kooxda ku lugta lahaa dilka 2 qof ee dhawaan lagu dilay deegaanka iyadoo markaasi si adag looga digay cid kasta oo markaasi lagu soo qabta falalka noocan oo kale in laga qaadi doono tallaabo sharci ah. waxaa muddooyinkii dambe deegaano ka tirsan gobolka Awdal ku soo qulqulayay maleeshiyad beeleed oo huweysan kuwaasi oo tiradoodu aan la qiyaasi karin kuwaasi oo markaasi ka soo talaabaya xuduudda Itoobiya iyo Djibouti kadib markii ay xukuumaddu joojisay soo bandhigistii buugga Xeer Ciise. talaabadan ayaa ka dhalisay kadib markii buuggaasi la kasalay in markaasi maleeshiyadka ay maalinta ka dambeysa ay abaabul xoogan la soo galaan gobolka Awdal iyagoo markaasi duulaanka ah ciidanka militariga Somaliland. qodobada kalena markaasi waxaa qayb ka noqonaya ciidanka Jubbaland iyo sidoo kale danab oo markaani cashar lama ilaabaan u dhigay kooxda Al-Shabaab kadib markii weerarkii ay ku soo qaadeen deegaanka Kudha. wararka naga soo gaaraya Jubbada Hoose ayaa sheegaya in saaka mar kale uu dagaal qaraar ka dhacay deegaanka Kudha halkaasi oo shalay ay soo galeen maleeshiyada ka tirsan kooxdaasi Al-Shabaab. ciidanka Jubbaland iyo kuwa danab ayaa dib u wareegay deegaanka waxaana saacado badan kadib laga saaray maleeshiyadkii argagixisada ee shalay qabsaday deegaankaasi. war-saxaafadeed ka soo baxay Jubbaland ayaa lagu xaqiijiyay in ciidanka ay dib u qabsadeen deegaanka kana xoreeyeen kooxdii Al-Shabaabka ee markaasi halkaasi weerarka ku soo qaaday. ciidamada Jubbaland iyo ciidanka danab ayaa si rasmi ah haatan gacanta ugu dhigay magaalo xeebeedka Kudha ee degmada Badhaadhe
ciidanka ayaa nasaakay magaalada dhowr jiho ka soo weeraray halkaasi oo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku sugnaayeen 24 saac la soo dhaafay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka markaasi ka soo baxay taliska markaasi ciidanka Jubbaland. waxa kale oo ay ciidamada nolosha ku qabteen ayaa la leeyahay xubno shabaab ah oo dagaalka qayb ka ah iyagoo dagaalamaya ayaana waxa la leeyahay nolosha ayaa lagu qabtay kuwaasi oo waayay meel ay u baxsadaan sida lagu sheegay markaasi bayaanka ka soo baxay taliska. waxay ciidanka gacanta ku soo gordhigeen qayb ka mid ah maleeshiyaadka oo waayay meel ay u baxsadaan kadibna ciidanka ay isku soo dhiibeen ayaa la sii raaciyay markaasi bayaanka ka soo baxay Danab iyo sidoo kale ciidamada Jubbaland. dhanka kale markaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa markaasi qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook waxa uu hambalyo ugu diray guushii ciidanka Jubbaland iyo kuwa Danab ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka al-shabaab ay kula galeen deegaan xeebedka Kuda isagoo markaasi hambalyo iyo bogaadin u diray ciidanka geesiyaasha ee jilbaha dhigtay maleeshiyaadka weeraray magaaladaasi oo istiraatiiji ah muddo dheerna ka difaacay markaasi kooxdaasi al-shabaab. waxaan bogaadinayaa sida markaasi aan gabadha shalada lahayn iyo sidoo kale sida ay u safeynayaan markaasi geesiyaasha in ay markaasi la diriraan xubnaha markaasi halkaasi soo weeraray ayuu yiri markaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. sidoo kalena waxa uu tilmaamay inay iska caabiyeen ay muujiyeen geesinimo ciidanka in ay ka feejignaadaan qataraha cadowga sidaasna ay uga hortageen markaasi weerarka ay ku soo qaadeen xubnaha. xaaladda Kuda ayaa haatan mid degan waxaana ka socda howlgallo amni xaqiijin ah oo lagu baacsanayo firxadka maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo halkaasi weerar ku soo qaday saacadihii ugu dambeeyay. guud ahaanba ciidanku waxay soo bandhigeen sidoo kale gawaaridii ay ka qabsadeen iyo sidoo kale rag markaasi ka tirsanaa xubnaha oo markaasi nolosha lagu qabtay iyo sidoo kale dhaawacyo aad u daran oo markaasi lagu qabtay dagaalka. guud ahaanba xaaladdu haatan aad ay u degan tahay waxaana halkaasi ka arriminaya ciidanka Danab iyo sidoo kale ciidanka Jubbaland oo markaasi weerar ku wareegay deegaanka Kuda kadib markii shabaabku ay halkaasi soo weerareen. qodobada kalena markaasi waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamulka iskiisa madax banaanida isugu dhawaaqay ee Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo markaasi la kulmay ayaa la leeyahay madaxweynaha Israa'iil iyo sidoo kale wiilka uu dhalay markaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump. madaxweynaha iskiisa isugu dhawaaqay ee Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo haatan ku sugan magaalada Davos ee dalka Switzerland ayaa kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha Israa'iil iyo markaasi wiilka markaasi madaxweynaha Mareykanka Eric Trump oo ay ka wada hadleen arrimo xasaasi ah. kulanka Ciro iyo sidoo kale madaxweynaha Israa'iil ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka u bilowday markaasi Somaliland iyo sidoo kale Israa'iil iyo sidii loo dhameystiri lahaa heshiisyada ay gaareen labada dhinac. Cabdiraxmaan Ciro oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ka hadlay kulanka waxa uu sheegay in diiradda lagu saarayo kulankaasi arrimo ku aadan xoojinta xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale aqoonsiga Somaliland kaasi oo Israa'iil ay ku dhawaaqday dhamaadka sanadkii tagay ee 2025. waxaan xalay kulan casho sharaf ah wada qaadanay ayuu leeyahay madaxweynaha dalkaasi markaasi Israa'iil shir ka dhacay markaasi magaalada Davos shirkaasi oo ah dhaqaalaha adduunka. madaxweynaha Israa'iil markaasi kulankana waxa diiradda lagu saarayay ayuu leeyahay xoojinta iyo horumarinta xiriirka markaasi Somaliland iyo sidoo kale Israa'iil iyo qoraalkiisa ku yiri madaxweynaha maamulka iskiisa madax banaanida isugu dhawaaqay ee Somaliland. sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in kulankani ay goobjoog ka ahaayeen hogaamiyaal caalami ah oo ka socda dalalka caalamka isla markaana uu ka mid yahay wiilka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump kaasi oo laga magacaabo Eric Trump. kulankana waxaa sidoo kale ka soo qayb galay siyaasiyiin culus iyo sidoo kale hogaamiyaal heer caalami ah oo ka kala socday dhammaan daafaha dunida iyo sidoo kale shakhsiyaad saameyn ballaaran oo ku leh masraxa caalamka oo uu ka mid yahay Eric Trump wiilka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa lagu yiri qoraalka. dhankiisa madaxweynaha Israa'iil isaguna waa uu soo hadlay sidoo kalena qoraal uu markaasi ku baahiyay X Twitter ayuu ku baahiyay sawiro kulanka dhaxmaray isaga iyo sidoo kale madaxweynaha Ciro waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in kulanka madaxweynaha Somaliland ay yeeshaan isagoo markaasi rajeeyay inay sii socon doonto wada shaqeyntooda si looga miro dhaliyo dadaalada socda ee markaasi Israa'iil iyo sidoo kale Somaliland ay leeyihiin. qoraalkiisa uu ku baahiyay waxa qayb ka ahaa isagoo leh waxaan ku faraxsanahay inaan magaalada Davos kula kulmo madaxweynaha markaasi Somaliland Cabdiraxmaan Ciro aad ayaan ugu faraxsanahay xiriirka markaasi ay yeesheen labada dal sida uu hadalka u dhigay